Allah u naxariistay waxaa meydkeeda laga helay guri ama hoy ay ka deganeyd xerada qaxootiga ee Ifatu gaar ahaan xaafadda E6. Marxuumadda ayaa lagu magacaabi jiray Maryan Cabdiraxmaan Midey, isla markaana ahayd hooyo haysatay amaba dhashay 3 carruur ah. Ayaa meydkeeda laga helay iyadoo qoorta uu xariiq xiran yahay, taasi oo walbahaar ku abuurtay ehelka iyo deriskeeda. Sidoo kale waxaa jirkeeda gaar ahaan lugaheeda ku yiilay dhaawacyo xooggan. Arrintan ayaa bulshada ku nool xerada qaxootiga ee Ifatu dhex dhalisay hadalhayn iyo kala duwanaan fikrad. Waalidka wiilka dhalay ayaa ku doodaya in gabadha ay iyadu isdishay, halka qoyska reerka gabadhu ay rumaysan yihiin in gabadhooda uu dilay ninka qabay, iyagoona tuhunkaasi ku saleeyay muran xooggan iyo khilaaf joogto ah oo u dhexeeyay qoyskaasi. Isla markaana ninka maalmihii u dambeeyayba ahaa mid ka masiirsan nin hadda ka hor uu qabi jiray gabadha. Ninkan oo hadda ku jira gacanta booliiska ayaa lagu wadaa in maro baaritaano ku aadan arrintan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdiraxmaan Maadey gabadhina Maryan Cabdiraxmaan ayaa la dhahaa. Marka alxamdu shukri ninka daraaday imaatay gabadheeda anoo guriga jooga baa mi ahaa. Marka daraad salaana inta iga imaatay aruur inta u joogta. Marka aruurtii deemaanteeda oo imaatay markii inta kooytay baati gurigeeda u nagatay mar lameed ninsa nagatay. Markii inta kooytay baa mi ahaa markan qaraab salaan siinko kooy ninkaas dila ilroogsidii dalba inta dhabba kilo dilka kilroogsidii si aan jarawa see meel abaada ka seeti hadii meel aan ilmahay roon dulmi saliika qaad karo warku si aan gudbiti naagta huli ninkaas haashitay huli ninkaas ko dhaafti ba ma hadii ninkaas aan dhaafnay sabab birta walan galaasabay ama horna inta inku ko Allah markaata kaaye inta inku ko may dhay Maryam markana dhaafooya 3 meel la ka hiri markaas ku dhuursaday dhahay ilaaha markaatinka afbuuntinka dhahay ana aadis Maryam markana dhaafooy sida ilaaha markaatinka maana 3 meel la ka hiri markaas ku dhuursaday dhahay bas deeshada ma aragna ilaaha markaatinka gabadha tii rawaayay tan hadda marsiid way gabadha markana hada seedina qaab iska dinan hadda ilaahay ka absadan hadda hadag la kaleeyay kana qowna hadag dhagar kana qowna lugaana dhul midiray gabadha la tirtay ka dhimata loo suuqa dadkii fogi kan dhama ida maskalad eber way hadadan halaana ka akaadi hadaga markii qofka markii kana ku qobada gabadha soo dili gabadhaas ilaa ninkaas dili aan adaanteed aan ku hayo ku sheega qofkas oo ninkeeda ina dili adaanteeda ku sheega inuu yarba wadataas talba aadi isbitaalka markii la gashay isugu meesha waa ogaanay ma aqaanay waa ka dawtadi markii ka dawtadi wariya meeshii yaa ku keenay haddii xanuunsan taabado xanuunka ma aqaanay soo hortay qabo stupid shit fucking yaa wadari wala soo bixi markii gabadhi la soo bixi isbitaalka baa laga soo iyo gabadh tabcaan way isbitaalka markii ku soo saaray telefoon la soo gashi abo ana wali soo bixi ninkii soo bixi gabadhina isbitaalka ku soo qaaday ma soo qaaday gabadha ma fiyaabati maya waa xanuunsan taabili markaas ana xanaaqay waxaan nikan laba arur kala noo haysi oo inta dhageysto oo reeyin aan walaalkii waa baxnay gurigeeda tagnay laba arur soo qaaday dhab wala soo baxnay sheekal bilaalgeedu yaa waa soo qaaday wala soo baxnay talagu soo baxay guriga la keenay ina dilmaana loo keenay ina kolku siyo gabadhaas iiga fiyeeyo oo maalinta guriga habarteeda imaada iga dambeey darab mar dhow lahay xaraga ku xiray dhiiji xaraga sawaabay xarag markii ii dhimita ogaadi xarag kala din soo qaadi turuba u sameey qoorta u gelin meel gaabana ku xiray magayda Abdul Fatah Osman Ibrahim wiilkii aad heran magaca ay ahado Maxamed Kamiisa leedahay wiilka oo gabadha ana dhalay marka shalay aan ma joogno labadoo yartan isbitaal ay jiiftay wiilka magaciisa Daahir Usmaan Ibrahim la dhahaa yartan oo miidka atan isbitaal ka jirtay inuu ka xanuunsanay inta imaatay gabadheeda taas yar iyo unug u dhiibtay waxay dhahday aanaha iyo daawada ii soo qaad marahan dhaqanaa marabne ninkaad hor u naqo
وهذا هذه سوماليا وبها كين إذن كإذن ضعفة. dhanka kale gudoomiyaha xerada qaxootiga Ifatu ayaa sheegay in arrintan ay u baahan tahay baaritaan isla markaana su'aal ka keenay in gabadhan ay iyadu istishay. Okay, أنا حالي على سهل صار حالي وأنا هاي شامل كإفوتو الحمد لله حالي أباري الشارع عصر كأباري هي اللي بيتون كمراس هذه الساعة ده مخرج مكيف عليها يا أخبار إيش وضعي أو أحكي بس دي شيء جودة مركي وحنا لها جودة ما يدم تهوى صح وحنا لها البوليس تام الله الله وحنكون يوصل مرة حافظ جوا هذا أنا بنسوي أي جاري يرتي بس مركي بالكم ماني ماري أنا ماري ماشي يدف كده إن جوريان هذا الكاميرا هنداي إن ميت ويالي ميت كدبر ينوال ما حنكفيني حرق باكويالي أو إن إجسام الجيبة حرق باكويالي ميت ك سويالي على العالب وجفه وأنا لدري ما حنكفيني حرق باكويالي بوكويالي حرق هو مريك بواقش سلاس واقش أنا ده كان قدامك ما فيرن سنة وجفته لكن مريك واقش لقمت على واقش مريك ما مجرى ذوق أباب جواني أباب هرنا ماني أباب كان وأنا جميل طالع يوم مرمكرة هاي أباب كان واسلا إن السنة بون هذا هذا واحد مات لا وجيه عشان لا وجيه حسن يوكليه حتى في ساعات تلفرمه السنة بو عادي هاي أو مدرسة أباب كان وجهنا si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa bulshada ku dhaqan xerada qaxootiga Ifatu ku abuurtay welwel iyo walbahaar iyadoona meydka marxuumad Maryan la geeyay isbitaalka Red Cross ee xerada qaxootiga Ifatu si baaritaano rasmi ah loogu sameeyo si loo ogaado kiiskan cidda ka dambeysay. Xasan Nuno Hilowle Xasan Macalimo.